kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan saaxiibayaal aad baan idin salaamaya waa boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aan alaaba ka daawan jirteen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya arrimaha la xiriira fanka iyo suugaanta iyo xaaladaha ugu dambeeyay ee wararka xaqiiqada ah barnaamijkan maanta waxaynu ku qaadaa dhigaynaa fanaan caan ah oo ka mid noqday xarakada Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay intayna u guda galin barnaamijkaas iyo faaladiisa fadlan walaal qaali meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtid waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee boggeena YouTube in aadan hilmaamin subscribe isla markaana aad gambaleel ka furtid si ay markaas ku soo garaan warbixin walba oo aan halkan ku soo gudbino ku mahadsanid haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan xog aan ka helnay mareegta caasimada online ayaa sheegaysa in xog ku saabsan in fanaaniin dhowr ah oo ka tirsan waaxda fanka ee gobolka Banaadir la xiray kuwaasi oo la sheegay in qaarkood ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab xogta yeeshay caasimada online ayaa sheegaysa in Abshir Gaarane Axmed oo xog hayn u ahaa agaasimaha waaxda fanka ee gobolka Banaadir Shamsa Cali Macallim iyo fanaaniin kale lagu qabtay guri ay deganaayeen oo ku yaala degmada Boondere baaritaan dheer oo ay hay'adda ammaanka ay samaysay ayaa la sheegay in Abshir Gaarane uu qirtay inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab wuxuuna u qaabilsanaa qaybta canshuuraha ee gobolka Banaadir Gaarane ayaa sheegay inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maaliyadda ee gobolka Banaadir Al-Shabaabka wuxuu si gaar ah u qaabilsanaa bixinta mushaarka Al-Shabaabka gobolka Banaadir iyo bixinta lacag la siiyo shabaabka wax dila iyo kuwa kale ee xogaha muhiimka ah keena sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida dadka aan la hadalnay waxay noo sheegeen in fanaaniin kale oo la shaqeeya Gaarane la xiray balse aysan jirin wax caddayn oo lagu helay iyo qiraal ay sameeyeen balse ay ku socoto baaritaano kale oo dheeraad ah wararka ayaa sheegaya in ninkan uu muddo kooban noqday madaxa maaliyadda ee Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir balse bilo kadib laga qaaday wuxuuna xilkaasi u hayay si ku meel gaar ah sidoo kalena xogta yeeshay caasimada online ayaa tibaaxaysay in ninkan uu soo farmuuqay macallimkii dilaaga ah ee Ilka Casi oo dhawaan ka soo muuqday TV-ga qaranka hay'adaha ammaanku waxay sheegeen in gobolka Banaadir ay dhex ceegaagaan shabaab badan oo u baahan in aad looga taxadiro qaarkood waxay ku taliyeen in gobolku go'aan looga qaato daawadayaal waxaa soo badinayay dadkii bulshada haldoorka u ahaa oo ka mid ah ururka Al-Shabaab intaan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaynu kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo